diyaar baan u nahay inaan dagaalano diyaar baan u nahay inaan shiidno diyaar baan u nahay inaan nabadoonnada ka hooseeya oo beeshaanu iska leedahay oo nabadoonka cali madaxweyne waa madaxii ugu sareeyay cali madaxweyne ka hooseeya indhahooda wax ku arkaan bergiya xasuusta nabadoon cali madaxweyne oo iska dhintay nabadoon cabdi muumin guuleed nabadoonka guud ee beesha cali madaxweyne ayaa maanta geel waxa uu soo gaarsiiyay ciidamada xaq u dirirka macwisleyda iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalka kula jiro kooxda argagixisada ah ee al-shabaab halkani waa duleedka degmada Moqokuri ee gobolka Hiiraan halkaas oo maalmihii u dambeeyay dagaal uu kaga furnaa dhanka deegaanka Ceel Cali Axmed oo ilaa hadda kooxda khawaarijta ah iyo mujaahidiintu ay isku hor fadhiyaan duleedka deegaanka Ceel Cali Axmed nabadoon cabdi muumin guuleed ayaa halkan waxa uu soo gaarsiiyay laba halaad oo geel ah oo qayb ka ah geel fara badan oo uu u qeybinayay furimaha ay dagaalka kula jiraan ciidamada xaq u dirirka ah kooxda argagixisada al-shabaab gudoomiyaha degmada Moqokuri maxamed cabdi macow iyo nabadoonnada degmada Moqokuri ayaa soo dhaweeyay kana gudoomay geela nabadoon cabdi muumin iyo odayaal dhaqameed la socday isla markaana ujeedkoodu ahaa in loo midoobo kooxda arxanka daran ee al-shabaab dagaalka lagula jiro salaan kadib waxaan maanta soo dhaweynaynaa noo yimid nabadoonka beesha cali madaxweyne iyo wafdigu hogaaminayay oo soo gaaray degmada Moqokuri una yimid indhayn dhibaatada ka jirta iyo colaadda jirta dhinacoodana uga jiray oo haddaba ayna ka imaan meel sayf oo nabada oo dhul colaadeed ay ka yimideen laakiin haddana waxay go'aansadeen dhammaan nabadoonku wuxuu go'aansaday inuu lugta soo mariyo waxaan leenahay ku soo dhawaada waad soo dhaweynaynaa soo dhaweyn qiimo leh waxa inta ay dheer nabadoonka iyo wafdiga uu la socday geelaas horteena ka muuqda warqabo geelaa horteena ka muuqda ay noo keeneen waxay u keeneen colka halkan ku dhuran midna waa ka soo tageen kay ka soo tageenna waa siiyeen annagana kanay noo keeneen waa arkaysaan geelaas abeeraa ayagana waa uga mahad celinaynaa ilaahay baa mahad iskale tan labaadna ayagana u mahad celinaynaa nabadoonka soo qalqaaliyey geelaas maanta soo gaday keenay colka halkan ku dhuran u keenay waxaa intaa dheeran ku darayaa warka ma sii badinaayo qoraxna waa la joogaa nabadoon cali madaxweyne weligiisa uu lahaa jiray ilaahay horta noo badbaadiyo laakiin yaa xasuusta nabadoon cali madaxweyne oo iska dhintay lama oga anuu kolley intan hadda ka warqabo wixii igu horreeyay waa igu horreeyeen oo hadda taariikhna dabageli ma laakiin intan ogahay 7 nabadoon cali madaxweyne oo isku xigtay xabada dishay dagaalay ku dhinteen mid iskii isaga dhintay waa iskii waa u dhintay waa jash waa ajalo la tastakhiruuna saacatan waa ilaahay baa qofka waqti u qoray laakiin xabaday ku dhinteen asaguna waa kaasada garabka ku wata waxaan leenahay marka asaga ilaahay ka badbaadiyo dagaalna hadda waa aqaanaa oo faraciisa aqaanaa nabadoonka niman hadda xabad ka gabada ma kuwa ugu horeeyo ku jira asaguna hadda inuu ka gabanaa ila ma laakiin bal intii la ilaali karana hal la ilaaliyo anta waxaan taaganahay Moqokuri waxaan ku soo dhaweynay nabadoonkii cali madaxweyne nabadoon cabdi muumin guuleed iyo wafdi kale la socda mas'uuliin kale oo la socda ayaan halkan ku soo dhaweynay odayaashii maxaaseed ah oo waxaan leenahay marka soo dhawaada waa mahadsantihiin waxayna u yimideen culayska meesha ka jira inay maaragtay dadkan ay guubaabiyaan ninka maqan oo dadkan u dhashay inuu ogaado maanta in loo baahan yahay ayaguna ay ka qayb qaataan aagag badan uu soo maray geela hadda meeshaas ka muuqdo oo labadaas salaad ah ayuu iibiyey in maaragtay ciidamada hilibqal looga dhigo waa soo dhaweynaynaa haddana waa soo dhaweynaynaa waxaanan leenahay kii jira ahaaw cid kastoo mas-uul sheeganayda amba caqliga qabta waxaa la rabaa maanta inay ka qayb qaadato ay ogaato maalin la kala helo lama joogo marka ayaguna waa mahadsan yihiin cid kastana waxaan leenahay ogaada waxaa la rabaa in maaragtay dadkaaga lala dhinto oo dadkaaga wuxuu qabo lala qabo
intaasaa la rabaa aan leenahay dadka uu gaarayo warkaynu maanta waxaan soo dhawaynaynaa nabadoonka cali madaxweyne iyo wafuudda la socota oo soo gaaray degmada Moqokori intaas kadib waad ogtihiin hadda maanta waxa jira leesu sheegi ma ciidamadu waxay joogaan hadda aan ognahay annagu 8 meelood bay joogaan nabadoonka mahadu ha ka gaarto labadaas halaad 8 meelood oo kaleeto geelo hadda oo maanta oo keenay oo labadan ka keenay waxaan ognahay inuu yahay 10 neef oo sida geelaan u yaalaan ah mahadu ha ka gaartaan leeyna waxaan u sheegaynaa marka dadka ahalka oo jira meel kastaba ha joogo ama dalka ha joogo ama dibadda ha joogo inay ka qayb qaataan bacda salaam nabadoonku waa mahadsan yahay khayr Allah siiyo garashada ilaahay kama qaado geelaan uu maartay soo keenay uu keenay colkan geelaan uu yiri sahay laga dhigto waa ku mahadsan yahay wax dadku nabadoonku u ahay oo uu yimiday meeshuu ka yimidna waa degmada Maxaaseed sidaan oo kale ayadana colkaas uu haayaa ilaahay colka ha naga qaada xaq ma hayno dantooda Allah tuso dad wax garad hadeen ilaahay dantooda ha tuso haday wax garad ma baahanin xoolo islaameed iyo dad islaameed iyo dal islaameed u socdaay waa hororkaasna in la iska ciliyo ilaahayna waa sheegay diinta islaamkuna waa sheegay waan iskaga dhicinaynaa xoolahayna iyo xoogaynan iskaga dhicinaynaa nabadoonkuna waa mahadsan yahay intaas taasaan ku dhaafa midda kale waxaan leeyahay nabadoonada ka hooseeyo oo beeshaanu iska leedahay oo nabadoonka cali madaxweyne waa madaxii ugu sareeyay cali madaxweyne ka hooseeya indhahooda wax ku arkaan berga ninkii waxa la yiri ninkii walaalkiis loo xiiro aduguna qoyso waa xiiranaysaa waa u jeedina meeshuu ka haaya meeshada kale ka haaya dhanka kale nabadoonada degmada Maxaas oo iyaguna qayb ka ah wafdiga nabadoonka oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in loo midoobo cadawgaasi isla markaana dadka ka soo jeedo labadan degmo ee mataanaha ah heel iyo hooba ay mar walba iska warqabaan iskana kaashadaan cadawga sababta ay halkan u yimideen ay tahay in ay iska kaashadaan cadawga bacdi salaan waxaan ka mahad celinaynaa sida sharafta leh oo qiimaha leh oo walaaltinimada leh ay noo soo dhaweeyeen noo qaabileen waa uga mahad celinaynaa intoo kale anagu noo celin intaa kadib safarkeena wuxuu ahaa cadow baahaaya labada degmo mataanaha ah haddii magaceeda la sheegta kale uusan ka helayn oo weli aabihii ah ayaan rabnaa sidii cadowga iska kaashanahay ogaal iyo yacni wax walba in iska kaashanane waa u nimiday cadowga hadda uu madaxa la yimid waxaan u nimid marka inaan ogaano cadowga iska kaashanno meesha wax ka jiraan iyo meesha wax ka soo buuran yihiinba in ka hortagno cadowgaas sidii aan siga ceel lahayn aan ka tashanno ninka maqan iyo ninka jooga oo ku xisaabtamo ka dhigto kor loo haayo inta isagana intaas waa isku baraarujinaynaa tan kaleeto walaalkii culaba waxa yiri nimanka walaalaha ah oo xawaadle ama nabadoon ha ahaado ama samadoon ha ahaado ama siyaasi ha ahaado ama dal ha joogo ama dibad ha joogo berga baahida hayso walaalkiis hadduusan ka qayb qaadan dayuus waay waan leenahay dadka madaxdeena ah oo magaalooyinka jooga ama dibadaha jira ama mas'uuliinta annagu aan ognahay oo madaxda noo ah waxa looga baahan yahay labada degmo mataanaha ah waxa waale aan la lahayn oo cid la taxabta ayna jirin inay difaacdaan iyaga laga rabaa niman walaalaheena oo maaragtay ayaga laftirkooda galmudug ka soo gurmaday khayraalaasi ayaguna waa noo yimideen hiil walaal u yimideen waan u mahad celinaynaa iyagana sidaas ayagana ay ugu mahadsan yihiin maadaama diris aan nahay dad walaalana aan nahay cadawguna aan u samanahay oo cid hadda dhaafa uusan jirin inaan soo kaalmayno meesha oo ka jira isku aasano ballan baa maka lahayn haddana ilaahay aan noo keenay ayagana waa mahad celinaynaa waxaan rabaa marka warkayga waxaan ku soo koobayaa nabadoonka khayr laha siiyo magoo yimid waa ismuujiyey awalna waa lagu ogaay meelaha degan yahay colka uu degan yahana ma yar waa 10 qaybood uu ku degan yahay
maxaas geelu xalay u geeyey maanta ay maaragtay bariis ku cunahaysaa haddana geelaana hor taaganuu keenay inta dhimanna waa tagayaahoo waa geynayna haddii alla idmo waa 10 meelood asagana mahad aan u celinaynaa ilaahay kor ka yeelo cadawgiisana allaha qabto meel alla meesha u tagane meel nabad allah ka yeelo meel alla meesha u tagay qasnadana allah u furo ciddii wax uu weydiiyo xawaadlaho soo ceelaama u tagaana coodkan ku caawi dadkii tolka ahayn ilaahay ayagana ha ka soo qaado ani hadal badan ugu ma jiro waxaan meeshaan uga baaqayaa labadan degmad dadka u dhashay ee ilaahay wax siiyay ama dalka jooga ama dibadda jooga ama dawladda ku jira waxaan uga baaqayaa meeshaan cidna uma maqna ceelna uma qodno labadan degmo iyo difaaca waddankaana inay ka qayb qaataan sida nabadoonka ay maalintii ururaan ee habeenkii dheelmadaan ee odayaasha iyo ciidamada garabkooda soo istaagaan ay gacantooduna soo gaarto intaasaan uga baaqayaa dadka labadan degmo u dhashay nabadoonku aad u mahadsan yahay hadda lagu ammaani maayo shukri calaa waajib waaye inuu dadkiisa la jiro oo uu dhex joogo oo wuxuu ilaahay waafajiyo u keeno shukri calaa waajib waaye waxaan ka rajaynaynaa sidii kii horo inuu ama ku dhinto ama waddanka ka dhammeeya shabaabna ilaahay aan ka rajaynaynaa waana ku dhiirigelinaynaa annagu marka socodkeennu wuxuu ahaa salaan iyo dhiirigelin si labadan degme si cadowga sida kaasho lahayd ay walaalo waaba yihiin ay mataqaanaa isku walaasho lahaayeen intaasaanu nimiday nabadoon cabdi muumin guuleed oo markaasi goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay kooxda khawaarijta ah ee al-shabaab godkay galaan uga dabageli doonaan hiiraan maahane meel kasta oo dalka Soomaaliya ka mid ah isaguna uu diyaar u yahay in uu ku shahiido la dagaalankooda halkii uu maray nabadoonkii isaga ka horeeyay Allah u naxariistay shahiid cilmi hagar guur awalan waxaan u mahad celinayaa degmadan dadka ugu nimid annagoo saaka ka soo kicitanay meesha la yiraahdo maxaas soona gaarnay furmaha hore ee Moqokuri oo odayaashii dhaqanka Moqokuri ay nagu soo dhaweeyeen iyo gudoomiyihii degmada oo hadda garabkiiga midig taagan aad ay u mahadsan yihiin mahad celintii iyo hadalkii qiimaha badnaa ragga hore aan la qabaa waqtigoo kulul iyo meeshan joogno hadda maaragtay meel hadda waqti lagu qaadan kara aan ahayn mahad celin iyo raanrayn iyo sharaf ayaad nagu soo dhaweyseen socodkeenu markuu wuxuu yahay xogaa waxaad moodaa war hadda la moog yahay oo ama xawaale loo sheega ama la leeyahay saa hala yeelo ma jiro waxaan caalamka u sheegaynaa dadka u dhashay reer Hiiraan oo labadan degmo ay gees ku tahay inay waqtiga la qaataan dadkooda colaadu hayso ee yimaadaan ee hiil iyo hoo ay ku bixiyaan walaalaha ka yimida ila ma iyo mudugna oo hiil walaalu yihiin midna ayagana waa u mahad celinayaan ceeb kuma aha annagana kulley filwaytan ugu ma ah dagaalkii siyaad barre geeskaasaan ka soo wada bilawnay geeska kale oo Kismaayo markaan geynayna ka bacdi dalkan xureysanaan ku degnay hadday wax dheeriyo yimideen wax dheeriyo waaba aragnaa hadday yimideen oo kuwaas ka darayna waxaa la rabay mar horeba inay fadhiga ka kacaan sa anagu uga kacno anagu muddo 4 sano dagaalkan nagu socdaa waa nagula socdaa laakiin sidan anagu aan maaragtay aan u taaganaa cawiya maalin oon ku geeliyo wiil beelnay ama aan haddeer qoraxda ugu taaganaa si lamid ah waxaan ka rabnaa mudug iyo galgaduud iyo Hiiraan iyo Shabeelle ilaa Muqdisho dadka jooga intaas ay nimankan u degan yihiin in hadee bidmaya nagala qayb qaataan sid mug iyo miisaan la ay kaalintooda qaataan sida anagu u qaadan soo dhawaada waadi kaga mahad celinaya safarkan quruxda badan anigu kulley waxa la yiri gacanta gogoda subagtayda isku galade waxa walaalahan iyo tolkaan ay hadda ileeyihiin sidaan u yeelay sidaas si ka xoog badan iyo laba laabkeeda waa sidii laga rabay awaanu taaganahay maalina u taaganahay qoragana garabka noogu jira diyaar baanu nahay inaan dagaalano diyaar baanu nahay inaan shiidno diyaar baanu nahay inaan meel alla meeshay jiraan oo iska dhaaf Hiiraan oo furmaha Soomaaliya oo dhan inaan u gudubnana diyaar aanu nahay war soo diyaar u manni nimanka